أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. casharkeennu wuxuu ka bilaabanaa aayadda 66 ee suuratu Ghaafir ka mid ah. يقول الله تبارك وتعالى إلهي وحليه جل جلاله: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. قل وحاتر هذا النبي الله إني أنيغا نهيت وحال إيغا أن أعبد الذين كوي أصنامتا إن عابده تدعون عابديسان من دون الله إلهي كسكو. لما وقتك يا ليغا ريبي جاءني وإيمت أي مادين البينات آياته عدعدا من ربي حق ربك إيغي مادين. وأمرت حالي أمري أن نسلم إن هقان سمه لرب العالمين الله عالمين ربي قوده إن هقان سمه أي اللي أمري saas ku dhaha layiri nabigeena calayhi salaatu wassalaam. Aayaddan waxay xiriir la leedahay aayadihii hore oo casharkeennii hore ayay xiriir la leedahay. aayadahaasoo ka hadlayay waa aayaad tadullu calaa waxdaaniyati illaah, aayaad tusinaya ilaahay kelinimadiisa iyo tawxiidkiisa. aayado tusinaya ayaa ilaahay suuradda noogu soo gebangebaynayay. aayaddan marka qul innii nuhiitu horena waxaan ugu soo marnay suuratu ancaam. sababu nuzuul ayay leedahay oo gaalada quraysh ayaa nabigeenna sallallahu calayhi wasallam markii ay mari waayeen oo muddo dheer uu ka hortaagnaay dadka gaalnimada iyo sanaamta iyo waxyaalaha ay qurunka ah ay caabudayaan, ayay xeelad kale ula yimaadeen oo waxay yidhaaheen waxba asnaamteenna ha aflagaadaynin, ha naga sheegin, annagana waxba maaragtay kaa sheegi mayno, ee waxaad yeeshaa cibaadada aan midayno oo adigana mar ilaahaaga aan kula caabudno sanadkii 6 bilood, adigana annaga asnaamteenna ilaahyaalkeenna 6 bilood nala caabud oo sidaa aan sheer ku noqonno oo wax ku wada wadaagno. saas ayay soo jeediyeen. taasaa laleeyahay sheeg suuratul kaafiruunna way ku soo degtayoo qul yaa ayuha alkaafiruuna laa acbudu maa tacbuduun walaa antum caabiduuna maa acbud walaa ana caabidun maa cabadtum walaa antum caabiduuna maa acbud lakum diinukum walidiin. muslim iyo gaalo waxba isuguma darsanaan, wax dhici karana ma aha. يعني اتفاق الأديان وحلي لا هذا قالت وضان سيب يهود ما دام يهود نعيبك وملك استقبل الله بضيعه
gaaladii kale xataa ay nacayaan ayay ittifaaqiye ibraahimiya la yidhaahdo u ololeynayaan oo aan isla wadana ah. kiniisadda iyo masjidku hal meel ha ku wada yaaliin, mid walbana ha loo arko inuu ku liibaanayo aakhiro uu jannada ku gelayo, kanna ha ku ammaanaado kanna ha ku ammaanaado. laakiin taa ma dhici karta wey. meel ay ku wadaagayaan oo shar ku noqonayaan ittifaaqul adyaan ma jirto. ina addiina cinda allah alislaam, hal diinaa jira wey. wixii ka soo haray yacni waxa weye waa baadil wey. qul waxaa tiraa nebi allow innii aniga nuhiitu waxaa layga reebay oo layga nahiyey an acbuda aladiina kuwii inaan caabudo oo asnaamtii tadcuuna aad caabudaysaan min duunillaahi ilaahay ka sokow. ilaahay kayrkii asnaamta aad caabudaysaan layma ogolo. qof muumin ah oo alla rumaysani wax ilaahay ka soo harin oo caabudo waa nahyu taxriim wey, waana ku gaaloobayaa wey. lamaa waqtigiiba ayaa layga reebay jaanii ay ii timid albayinaatu aayadihii cadcaddaa waxyiga qur-aanka min rabbii xagga rabbigay markay iga timid. warba haddii ilaahay nebi rasuula iga dhigay khalaas aniga iyo cibaadadiinna iyo asnaamtiinna waa isdaynay. wa umirtu waxaad ku tidhaahdaa waxaa lay faray oo aniga lay amray an uslima inaan hoggaansamo lirabbi alcaalamiina wey. caalamiinta wax alla wixii asaga ka soo haray allihii rabbigooda ahaa inaan u hoggaansamo, saas ayaa lay amray, saa ku dhabaa la yidhi wey. haddana waxaa ilaahay noo sheegi yacni bayaan iyo wa tawdiix lidalaa'il alwaxdaaniya. ilaahay inuu keli yahay waxyaalaha lagu garto waaweyn waxaa ka mid ah maraaxilul insaan, insaanka heerarka uu marayo wey. insaanka heerarka uu marayo, xaaladaha uu marayo, isbeddelka ku imaanaya noloshiisa, aayaadka ilaahay lagu gartay ka mid tahay. qof maanta iska celin kara ma jiro. soo difliyaha la dhalay oo dhallaana oo cadkaa yarkaa wadba meel loo qaadqaadayo, waa ka gudbay gurguurad iyo socod, xoogaysi, tale iyo tigaad, inuu tacbado, kabacdi inuu waayeeloobo soo gudmo, inuu dhacdhaco, inuu nolosha faaruqo. insaanka heerarka yani kullu insaan heerarkaas ayuu marayaa iyo maraaxishaas ayuu marayaa wey. marka cid diidi karta iyo cid ka hortegi karta maraaxisha allah muslim walaa kaafir ayan kaana ma jirto wey. huwa ilaahay alladii allihii way khalaqakum idin abuuray min turaabin inka abuuray wey. carro xaggeeda, ciid xaggeeda ilaahay inka abuuray. huwa ilaahay alladii allihii waaye khalaqakum idin abuuray min turaabin, waa aslulbashar. bini aadamka asalkiisii nebiyullaahi aadam ayaa ciidda laga abuuray wey. huwa ilaahay alladii allihii way khalaqakum idin abuuray min turaabin, carro iyo ciid xaggeeda ilaahay inka abuura. uma markaa kabacdina min nudfatin dhibic biyaa oo mani ah ayaa ilaahay inka abuuray. wixii nebiyullaahi aadam faraciisa iyo tafiirkiisa iyo ubadkiisa ahna kullu insaan makhluuq min haadihi nudfa wey. waa mani oo ya'ti min alwaali min alabi wa min alummi. dhibicdaas ka dhibcaysa wax yar oo manida ka mid ah, haddaa farabadideeda xataa waxba lagama abuuro wey. uma markaas kabacdi dhibacda biyaha ay raximkii dhex taallo ayaa haddana ilaahay wuxuu ka abuuray min calaqatin xinjir. xinjiray noqonaysaa, wax dhiigoo xinjiroo soo adkaanaya wey. waa bacda al-40 wey, sida xadiiska nebigu uu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam. uma markaa kabacdina yukhrijukum ilaahay wuu idin soo saaraa yacni min alarxaam ayuu inka soo saaraa oo ila alkhaarij khaarij addunya ayuu ilaahay idin soo saaraa. diflan dhalaan xaalaa tihiin. adiflu waa mufradun bimacna aljamci oo jinsi ah, bimacnaa adfaalan xaalaa tihiin, adinkoo carruur ah, dhallaamo yaryar. uma markaas kabacdi litabluquudan waxay ku tacalluqi ficil maxduuf oo meesha laga fahmay. uma markaas kabacdi adinkoo difliya aad dhalataan yubqiikum ilaahay wuu idin baaqi yeelaa. haddii nolol ilaahay inkugu talagalo ilaahay wuu idin baaqi yeelaa. muxuu idin baaqi yeelaa? likay tabluquu inaad gaartaan ashuddakum awooddiina, taag iyo tabartiin. ashud inaad gaarto. culimmadu waxay dhowr marna oo soo marna eragaane waa maa bayna xuduudi 30 ila 40. 40 iyo 30 labadaa tiro, ninka raggaa marka 30 soo gaaro haddana 40 gaaro, wixii dee 40 ka dambeeya waxaa bilaabanaya tabardarro.
jilbihii laga gale ilkihii xanuunaane dhabarkii xanuunaane culamada qaarna waxay leeyihiin maa bayna al-40 ila 60 lixdanka waa xoogga insaanka wey tuma markaas kabacdi ilaahay haddana uu idin baaqi yeelaa litakuunuu inaad ahaatiin shuyuukhan odayaal wey waa yeelo de ninkii xoogga lahaayo yani markuu socdo dhulku gariirayo asaga dhammaarta wax qabsiga iyo shaqadii socodka badnaa yani bacda 60 wa 70 67 bakooradda awoowaha loo dhiibo awow maaragtay gacanta hala qabto tooshkiisii hala keeno waa isbedel insaanka nolosha la tarkabanna dabaqan han dabaqin adduunyadu iska cayaar isaga dhammaanaysaa aawa ninka asaga waana ummadii dhanaaba laga soo cabo wey awoowa loo qaado dacaska loo toosiyo saasaa bilaabanaysa wa minkum adinka waxaa in ka mid hor ilaahay bini aadamow man ruux ayaa in ka mida ruuxoo yutawafaa la oobsanaayo min qablu horeba min qabli buluuqi alashuddi waashayquuqa intaanba ashud uusan gaarin saqiirnimo iyo dhallinyarannimo ayuuba ku sabuulhaadayaa wey ha sheegi waaba ninkii ilaahay daysta waay ninka awoow bakooraddiisa hala siiyey mar ninka maqlaayaahay waaba nin ilaahay daysto waxaba ka mid uu ilaahay leeyahay wa minkum waxaa in ka mid a man ruuxoo yutawafaa la oobsanaayo la dilayo min qabli buluuqi ashuddi aw ishayquuqa soonba awood gaarin iyo shayquuqa iska dhimanayo walitabluquu ayaa ilaahay idiin baaqi yeelaa haddana walikay tabluquu inaad gaartiin ajalan muddo iyo waqti ajalkaasoo musamman ee la magacaabay ajalka musammaga waa ilaa yani intihaa'i dunya adduunyintay ka dhammaato insaanku iskama joogayo ajaluu leeyahay adduunyada waa u tirsamaya ama markii kulli fardin la fiiriyo saas waa cumuume fardi markii la fiiriyo ajalka musammanka waa inqidaa'u cumri linsaan qofka cumrigiisa intii laga gaarayo iska waayeelow iska dhacdhac sariir iska raac 100 dhaaf haye ajal musammaga ma dhaafays ajalka musammiga ma dhaafaysna walaalakum waxaad mudan tihiin haddaad aragtiin arrimaha iyo maraaxisha insaanka ilaahay marsiinayo tacqiluuna inaad wax garataan caqli yeelataan oo caqligiinna uu idin tuso alle inaad caabudaan oo alle aad ku xiraataan oo cumrigiinna iyo awooddiinna iyo dhaqaalihiinna aad ilaahay cibaadadiisa u kaashataan aayaadka hadana huwa ilaahay alladii allihii waaye yuxyi wax nooleeya wa yumiitu waxna dilow waa sifaadka ilaahay la gaaraya laa gaalaan sheegan karin walaa sanamaan sheegi karin walaa jinniyaan sheegi karin walaa malag walaa bashar walaa insi wax sheega kale ma jiraan sifatu al-ixyaa iyo sifatu al-imaata lilaahi tacaala huwa ilaahay alladii allihii waaye yuxyi wax nooleeya wuxuu raba ilaahay wuu nooleeyaa wa yumiitu waxna dila fa idaa waqtigii qadaa ilaahay uu xukumayo amran arrinna fa inamaa in kala maahana yaquulu ilaahay wuxuu leeyahay lahu arrinkaa wuxuu ku leeyahay kun ahaaw fa yakuunu ahaanaya waxaaba la yidhaha wa amruhu bayna alkaafi wannuun amarka ilaahay meesha annaga waxaan hirgelinayna waqti iyo maskax iyo dhaqaale iyo xoog iyo tigaad iyo talo ay u baahan tahay ilaahay wax walba kun weliba kuntaas waxaa la yidhi caqliga insaanka wuxuu wax ku fahmo saana wax lagu qabtay caqligana meesha ugu yar uu la jaan qaadi karaa intaa ilaahay amarkiisa kun uma baahnaba wuxuu ilaahay fa idaa waqtigii qadaa idaa iraadiye wey idaa al-iraadiye markuu xukumo ma fa idaa qadaa yani idaa araada qadaa'ahu wey haddii ilaahay fa idaa waqtigii qadaa uu xukumayuu doono amran arrin iyo go'an fa inamaa in kale maana yaquulu ilaahay wuxuu leeyahay lahu amarka wuxuu leeyahay kun ahaaw fa yakuunu ahaanaya alam tara sooma aadan arkin nebi allow waa istifhaamu tacjiib weydiin la yaabgelina wey waa lala yaabgelinaya waxa lala yaabo waay alam tara sooma aadan arkin nebi allow ila aladiina kuwii gaalada ahaa yujaadiluuna murmaya fii aayaati illaahi ilaahay aayadihiisa dhexdeeda ka murmayo aayaadka ilaahay ayay muran la hortaagayin inay buriyaan oo ay tirtiraan oo ay ka hor yimaadaan ayay muran ula taagan yihin wax lala yaabo يعني الجدال في آيات الله الجدال في الحق وأرين خطر سورة كريمة وحال إلى آيات نوعانا المجادلة في آيات الله بالنسبة إلى الكفار والفساق والفجار يعني تكررت في 3 مرات 6 مرات نوصل الله 6 مرات نوصل الله
mar waxay noogu soo laalaabatay aladiina yujaadiluuna fii aayaati illaahi bikayri suldaanin ataahum kabura maqta. marna cashirkeena xalay ku jirto in aladiina yujaadiluuna fii aayaati illaahi bikayri suldaanin ataahum in fii suduurihim ilaa kibrun maa hum bibaaligiih. marna waa kana ayaga marka waa iska ta'kiida la yidhi mar kasta ayagaa saa u badnaa kufaaru quraysh, ama waxaa la yidhi saddex qolayba kala yihiinba, mar yahuuday noqon karaan, mar mushrikiin qurayshay noqon karaan, mar nasaaray noqon karaan la yidhi. waa caam aayadda. alam tara sowma aadan arkin la yaab wey ila aladiina kuwii yujaadiluuna murma oo dooda fii aayaatillaahi ka murmaayo ilaahay aayadihiisa annii sidee baa waa yaabe yusrafuuna looga jeediya can ilxaqi walaayaat. yaa ma wax laga murmaa yaa aayaadka ilaahay oo tusaalooyinkan hadda ah ayay muran gelinayaan wey. ay mudan yihiin marka waxay mudan yihiin oo cadaaba ayaa ilaahay noo sheegay. aladiina kuwii kadabuu beeniyey bilkitaabi kitaabka qur-aanka kuwa beeniyey, wa bimaa xaqiina beeniyey, xaqaasoo arsalnaa aan la soo dirnay bihi maagaas xaqaas rusulanaa rusushannada aan la soo dirnana beeniyey. hee fa sawfa mar dambe yaclamuuna ogaan doonaan. waa hanjabaadtii ugu weyneed wey. wixii kugu dhacaa waad arki doontaa qofka haddii la yidhaha waa dhibkeeday leedahay. aladiina kuwii kadabuu beeniyey bilkitaabi kitaabka qur-aanka beeniyey, wa bimaa xaqiina beeniyey xaqii arsalnaa aan la soo dirnay bihi maagaas xaqaas rusulanaa ama rusulanaa. fa sawfa mar dambe ayay yaclamuuna ogaan doonaan. id waqtigii ayay ogaan doonaan. iddaani bimacnaa idaa waa idaa waqtigii ayadoo leeri karit. id waqti ayay ogaan doonaan al aqlaalu katiinaduhu iyo wasalaasilu silsiladuhu fii acnaaqihim ay ahaadeen luqumahooda. xaaladda noocaasoo xaalad khatara marka maxay ogaal taraya qofka haddii la qabto dooley macnaha boodboodka intuu boodboodayo xorriyad haystaa duu shabaqa ku dhaca muxuu taraya. mar haddii katiinadii naarta luqunta loo geliyo iyo silsiladihii lagu jiidi lahaa maxaa maantaan wax ogaaday yacni waxba tari maysa fursaddaas. id waqti ayay ogaan doonaan al aqlaalu katiinadaha wasalaasilu ku cadfanta iyo silsiladuhu fii acnaaqihim luqumahooda ay ahaadeen. gacmaha saan loogu xiraa qoorta lagula xiraa waaye. yusxabuuna waa la jiidayaa fil xamiimi. yusxabuuna ama waad xaalayn kartaa xaal la jiidayo fil xamiimi yacni naartii kululeed dhexdeeda lagu jiidaya. xamiim naar oo ka dhacaankii iyo biyihii kululaa dad markaa kabacdi yusjaruuna waa la huriyaa fin naari naarta dhexdeeda lagu huriyaa. waa la huriyaa maxaa laga wadaa yacni naartayba waxay u yihiinba waquud iyo xadab. yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naaran waquuduha annaasu walxijaara. naartaasayba waxay u yihiinba xadabay u yihiin naarta ayay xadab u yihiin. waxay u yihiin naarta waquud lagu shidayo ayay u yihiin wey. ayib soo markaa kabacdi yusjaruuna waa la huriyaaho waxaa lagu shidaa fin naari naarta ayaa lagu shidaa wey oo lagu huriyaa. soo markaa ayagoo sidaa u holcaya ayaa qiila waxaa lagu yidhaa malaa'igta naarta waxay ku leeyihiin lahum kuwa gaalada ah ayna maa shay aawey shaygoo kuntum aad ahaan jirteen tushrikuuna inaad la wadaajisaan min duunillahi ilaahay ka sokow. waa su'aal atahakum walistihzaa istifhaam oo lagu jeesjeesayo aawey. haaulaa'i shufacaauna cinda allah ilaah agtiisa inooga shafeecayaan maa nacbuduhum ilaa liyuqarribuuna ila allah mee aawey. dhibaato xanuunkeeday leedahay walciyaadu billaahi. duu markaa kabacdi qiila lahum waxaa lagu leeyahy gaalada ayna maa shay aawey shayga waa asnaamtii wey kuntum aad ahaan jirteen tushrikuuna inaad wadaajisaan min duuniillah ilaahay ka sokow. qaaluu markaasi waxay yidhaahaan dalluu asnaamtii way lumeen cannaa xagganagay ka lumeen wanaga kala dhuunteenay leeyihin aawe. yacni shayga markaad inta garabka maalimkaad ugu baahi badantaa garab hadduu kaa dhuunta kawa anaga dhuunta tay yaaliinba waaba lagula shida naarta lagula shida. bal iska dhaafe lam nakun macnaan ahaan jirin nadcu inaan caabudi jirnay min qablu horay min qablu dukhuulina annaar intaana naartan soo gelin shay-an waxba macnaan caabudi jirin. yani waxay isku dayayaan inay inkiraanba la qof walboo dembi gala markii la waxaas ma gasho maya maana same ma arkin ma urin miinku ka cuskanaya laakiin maalinkaas maalin miinka wax laga cuskan kara ma aha. bal iska dhaafa lam naku ma aanan ahayn nadcu inaan caabudno min qablu horay
shay-an waxba. Ilaahay wuxuu kadaalika sida ay u lumeen ayaa yudillu Allahu ilaahay u lumiya alkaafiriina gaalada. Gaal waa lunsan yahay fi dunya wal aakhirah, yani hadaf iyo xaqiiqa iyo natiijo iyo nabad iyo nolol waa ka lunsan yahay. daalikum midkiinaas ayaa la leeyahay cadaabka aad gasheen bima bisababi maa kii sababkiisa oo ahaada kuntum aad ahaan jirteen tafraxuuna inaad faraxdaan fil ardi ardadan aad ku faraxdaan bigayri alxaqi xaq la'aan. alfaraxu bimacna albadar qooq iyo kibir. wabima bisababi maa kii sababkiisa oo cadaabkan inkugu dhacay kuntum aad ahaan jirteen tamraxuuna inaad kibirtaan. الفرح والمرح بمعنى البدر عن الحق والاستهزاء به. يعني وحوي وحقي ولا iska santaaga wey saas taasaa keenaysa. ذلكم midkii naas cadaabkiihi bisababi maa kii sababkiisa bisababi kownikum wey ahaanshihiina sababkiisa oo ahaaday aad ahaan jirteen tafraxuuna inaad ku faraxdaan ood ku qooqdaan fil ardi ardada dhexdeeda bigayri alxaqi xaq la'aan. وبسبب ما كسب كيسا وبسبب كونكم أهانشهن السبب كيسو عدهيدين تمرحون فيها أرض إن تكوكي برتانو. ادخلوا قال مركا والمرين تيدواك أبواب جهنم الباب تيدا قال إردها جهنم قال لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. جهنم الباب تيدا قال خالدين حال آتين كواريا فيها جهنم قده لكواريا. وهذا القف بني آدم النهاية سي نتيجة سماش وحنوي. فبئس وحباس لهذي مثوى المتكبرين كويس كبريو سوينيسية مكانو نغاشيه هي وجهنم جهنم السيدة بقى وحصل دكتا المتكبرين في الحق بالحق كو حق اسك كبرسيو اسك وينيسية. فاصبر صبر نبي الله إن وعد الله إلهي بلنغاد كيسو حق ومدبو وعد إلهي وعدب. ayadahan waa tasliya nabiga aad ay u dhibeen san leeyahay yani waa lagu dhaafin doonaa kuwan ama adoo jooga ku raaxaysan doontaa cadaabkooda ama hadaad dhimato aakhirad arki doontaa. fasbir adkayso oo sabar nabi allow inna wa'dallahi ilaahi ballanqaadkiisa wey oo yani waxa weeye nasrul mu'miniin wa halakul kaafiriin. saas ilaahi markaas ballanqaaday mu'miniinta ilaahi inuu u heelinayo وكان حقا علينا نصر المؤمنين إيوه وإهلاك الكافرين. قال لي الهلاك إله بلنقاده حق وربوي هكشكنني. فإما نرينك هدي أنكو تصنه وتأكيد نمتوكيد ثغيلة أنكو تصنه نبي الله بعض الذي عذابك قاركيس نعيدهم أنوهن جبينه ونبلنقاده هي جابك بالإسكاحة هدانكو تصنه هي فذاك واضح كاسو اسكعدي هي وايه. فإما نرينك هدانكو تصنه بعض الذي عذابك غاركيس نعيدهم يعني أنا وهن جبين سيهزم الجمع يا ليرمك ولا جبين دونا ويولون الدبر. فذاك واضح هذا والصبر كاجي مريه سواد قرطو أرنكاس وأرن عد وانا اللي تسيا لي أرنتاس بعد النبيين دقالك بدر انتي دين تلقودي وايي سحنا لولايو عساعيل قرف البردي أو أمسا نتوفى ينك هدانكو أوفصنو أنكو قادنو أنكو دلنو فإلينا حقا نغا يرجعون لسو علينا ياوي حقا نغا أيا كوان قالدا لسو علينا يا فكان مايا هدا أدو هرمرتو حقا إني أصلا لابنا يانو فإلينا حقا نغا أيا يرجعون لسو عليا كوا قالدا دب لوغو سو عليا marka labada arrin ay Ilaahay nabiga ballan qaaday inaad aragto in qiyaamada la isugu soo laabto xageena loo soo celiyo waxa dhacday marka asoo noolba inuu arka ayagii laga kaafiyay oo nabigu uu ka dhinto sallallahu alayhi wasallam ayadoo wax adduunka dhan awood gaalaba aysan jirin ba way oo xoog leh walaqad xaqiiqe aayaadka dhan waa tasliya li rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam sabar gelin nabigeena la sabarka quraanku inta badan wuxuu la falgalaa humuum dacwa qofka daaciga ah oo diinta wada in humuumtiisa la yareeyo leerama arintan way dhici jirtay daday ku dhacday insha Allah waa laga gudbi doonaa walaqad xaqiiqo wuxuu Ilaahay arsalna waxaan dirnay rusul fara badan tawiintu takthir iyo tacdiim
rusul fara badan ayaan dirnay ilaa umamina u dirnay wey min qablika adiga hortaa nebi allow ayaan rusul badan dirnay wey walaqad xaqiiqe arsalnaa waan dirnay rusul fara badan ayaan min qablik adiga hortaa rusul fara badanaan dirnay minhum rusushaas waxaa ka mid ah man ayaa ka mid ah duulkoo qasasnaa aan qisoonnay calayka korkaaga qur-aanka lagaaga qisoodo waa yani 314 rasuul ilaahay diraa layidhi inta badan qur-aanku 8 uu kusoo celceliyaa wey ibraahim ismaaciil isxaaq yacquub kuwaa la tiriyey suuratu ancaam lagu daray minhum waxaa rusushaa ka mid ah man ayaa ka mida wey 24 qur-aankiiba lagu sheegaba duulkaasoo qasasnaa calayka adiga dushaada aan ku qisoonnay wa minhum waxaa ka mid a rusushii man duul mankoo lam naqsus calayka dushaada aanaan ka qisoonin wa minhum waxaa ka mid a man ayaa ka mid ah duulkoo lam naqsus calayka dushaada aanaan uga qisoon oo naba kuu sheeginba marka laa yaclamu cadadahum ila allah rususha tiradooda ilaahay unbaa garanaya layidhi rususha tiradooda ilaahay unbaa garanaya nebiyaashan iskaba dhaafba waa ka sii badan yihiin walidaa culimmadu waxay yidhaahdaan bacatha allaahu 8,000 nebiyin ilaahay wuxuu soo diray yacni 8,000 oo nebi ayaa ilaahay soo diray 4,000 min bani israa'iil 4,000 oo nebi reer bani israa'iil loo diray nimankaa dhibkooda yani tasuusuhum alambiyaa nebiyaasha ayaga isku raacraaci jireen kulamaa halakahu nebi khalafahu aakhar kan markuu mid dilaan ama uu dhinto mid kale loo soo diray 4,000 reer bani israa'iil keliya loo diray dhibkooda 4,000 min saa'iri naas 4,000 waxaa loo diray dadka kale ayaa loo diray sayidina cali wuxuu dhihi jiray cali ibn abi daalib radiyallahu canhu in allaha tacaala bacatha nebiyan aswada ilaahay wuxuu soo diray nebiyan aswad nebi afrikaan oo madow aa jiri jiray carab keliya nebiyaal ma ahayn fa huwa nebiga madow miman lam yudkar qisatuhu fi lqur'aan qur-aanka laguma sheegina layidhi nebi afrikaan ayaa jiray wey saasoo kale ninka la dhihi jiray luqmaan oo sida raajixa nebi aan ahayn isagaba afrikaan oo ahay luqmaan alxakiim waaye wamaa kaana wa minhum waxaa ka mid a rusushii man duulkoo lam naqsus aanan qisoon calayka dushaada wamaa kaana isku soo duuduub wamaa kaana uma ahaanin umana habboonaa lirasuulin rasuul an ya'tiya inuu la yimaado biaayatin aayad mucjiza ah ilaa biidni illaah ilaahay idankiisa ma ahano yacni nebigeenna waxay ka codsan jireen oo ay maaragtay ay weydiin jireen aayaad inuu mucjizaad la yimaado ambiyadii hore mucjizaadkoodii ushii nebi muuse iyo hashii nebi saalex iyo ama haddii kale buurahan maka naga wareejiyo magaalo webiyaalo oo beeraha iyo nookeenoo samada maaragta ka soo rido malaa'igta ha kula hadasho ilaahay ha farriin hano waxaasan ku soo marna suuratu lisraa ilaahay wuxuu ma kaana lirasuulin rasuul ma ahaanin an yaatiya inuu iskala yimaado aayad mucjiza ilaa biidni illaah idanka ilaahay inuu kula yimaado maahane fa idaa waqtigii jaa uu yimaado amrullah ilaahay amarkiisa hadduu yimaado oo cadaabkii ummaddii markay nebigooda ka hor imaato yacni waxa weeye oo ummadu ay nebigooda iyo ay diinta ka hor timaado ay dhibto cadaab aa imaanaya fa idaa waqtigii jaa uu yimaado amrullahi ilaahay amarkiisa qudiya waa la xukumaa bilxaqi bilqadaa'i xugum qadahaasoo alxaqi ee dhab ah qadaa xaq oo kala bax wa khasira waxaa khasaaray oo ku khasaara hunaalika halkaas qadaha ilaahay ka dhacayo makaankaas almubdiluuna kuwii baadilka raaci jiray attaabicuuna bilbaadil kuwii baadilka raaci jiray ayaa halkaa ku khasaaraya ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwii baadilka samayn jiray halkaasay ku hoogaan allaahu ilaahay allihii way jacala lakum idin yeelay idin abuuraa laga wada al ancaama nicmooleyda allihii idin yeelay litarkabuu inaad kortaan minhaa ancaamtaas inkugu yeelay hadda gaadiid kala hibido diyaarado iyo maraakiib iyo waxaa la helay waxay ka mid tahay waa yakhluqu maa laa taclamuun wixii ilaahay abuuray ka mid tahay laakiin haddana weli adduunku kama tegaayo ingeelii la raranayo fardihii la korayo allaahu ilaahay allihii way jacala lakum idin yeela al ancaama nicmooleyda geela ariga lo'da litarkabuu saad u kortaan wey waa siiba geela minhaa ancaamtad xaggeeda aad u kortaan gaadiid waa
ilaa yawmina hada dhulka jira saxaraha baabuurta aan la marsii karin oo awrta lagu maro wa minha ancaamtaas xaggeeda ayaa ta'kuluuna haddana ka cuntaan waa nicam oo yacni mutacadida ah hadba dhinac mar waa kuu gaadiid marna hilibkiisaad qalanee way soo baabuurka ma fiicna mar baabuur dad ku gaajooto motoorkiisa iyo birihiisa cuni mayse laakiin neefkan geela faraskan waa iska qalanaysaa walakum waxaad idin sugnaaday fiiha ancaamta dhexdeeda manaaficu wacnaha manaafici manfacado iyo waxtarro kale oo hayra arukuubi waalakli ah manaafici suufkii idaha maqaarkiisii aad macnaha waa yahay lacagtii dhaqaalaha aad ka gadanaysid manaafic fara badan walakum waxaa idin sugnaaday fiiha ancaamta manaaficu manfacooyin waxtarro walitabluquu ayaa haddana ilaah idinkugu yeelay inaad ku gaartaan calayha ancaamta dusheeda xaajatan dan xaajadoo fii suduurikum laabihiinna maxbadyaalkiina dhexdooda ahaata geela meelo dhaadheer oo qofku ganacsi iyo arrimo muhiima uu ka leeyahay xaajooyinkaas danaha uga jira ayuu ku gaaraawe wa calayha ancaamta dusheeda iyo wa calalfulki doomaha dushooda ayaa tuxmaluuna laynku xambaaraa waa laba safaa'in weeye awrtu waa safaa'inulbirri wey dhulka burriga ayaa looga gudbaa waa doomihii loo raaci lahaa wey halka doomuhuna ay yihiin safaa'inulbaxri badda doomaheeda ay yihiin ilaahay wuxuu yidhi subxaanah wayuriikum ilaahay wuxuu idin tusiyaa aayaati aayadihiisa mucjizaadka waxdaaniyadiis sida ilaahay insaanka u abuuray xoolaha awoodaha ilaahay jannada iyo naarta le awoodiisa cirarka dhulalka ayuu idin tusiyaa wayuriikum ilaahay wuxuu idin tusiyaa kufaaru makay lagula hadlaaye aayaatihi ilaahay aayadihiisa idin tusiyaa wey fa aya aayaatillaah ilaahay aayadihiisa teebaad tunkiruuna aad inkiraysiin te inkirsantihiin ma samadan ilaahay abuuran maalinkaan ilaahay idin abuuran ma xoolahaanan ilaahay inkugu nicmayn ma badahaan iyo barrigaana ilaahay abuurin haye te inkirsanta yacni laa shaya min aayaati illaahi yunkar shay ilaahay aayaadkiis ka midoo la inkiri kara maba jira bade wax iska waadixa wey fa aya aayaatillaahi ilaahay aayadihiisa teebaad tunkiruuna inkirsantihiin ood inkiraysiin afalam yasiiruu ilaahay wuxuu uhi maysan soconin afalam yasiiruu maysan socdaalin maysan soconin miyaa kuwan gaalada fil ardi dhulka kumaysan socon miyaa way socdaan sayra tijaaratin wa nasaahatin yacni socodka ganacsiga iyo dalxiiska iska socod laakiin sayra ictibaar ma socon socod oo qofka ku cibro qaadanaayo meelaha cadaabku ka dhacay ummadaha la cadaabay dhibaatooyinkii dhacay oo fayanduruu ay soo fiiriyaan aayadahan way ku badan yihiin awalam yasiiruu fil ardi qura fayanduruu ay soo fiiriyaan kayfa sidii kaana ay ahaatay caaqibatu aladiina kuwii ciribtoodii min qablihim ayagu hortooda ahaadeen ummadihii ka horreeyo gaalada ahaa meeshii ku dambeeyaan maba u dheeraynba qowmu luud meeshii lagu cadaabaa u dhoweed qowmu huud a u dhowaa reecaad qowmu thamuud oo nabiyullaahi saalixa u dhowaa qowmu luud wax dhan fircawn meel ka fog maba jirinba haddana saasay taa kuma tusaale qaadan meeshii ay ka baxeen unbay ka baxeen kaanuu ummadaha ka horreeya ayaga waxay ahaan jireen aktara kuwa fara badan minhum min kufaari quraysh gaaladan quraysh way ka fara badnaayeen cadadana laga wada xagga tirada hay ummadaan dhame yaa tirada intay dhamaaye wa ashadda kuwa daraansho badan ay ahaayeen quwatan min quwatin xagga awoodda wey awood yaa reecaad ree thamuud fircawn tee reer luud nabiyullaahi ibraahim ummadihiisii dad awood badan ay ahaayeen wa aahaaran quwatan min quwatin xagga awoodda iyo wa aahaaran min aahaarin xagga raadadkoo fil ardi dhulka dhexdiisa ahaadeen dhulka say u raadeeyeen dhulka waxaa lagu raadeeyaa min albinaa'i waalziraaca waalxusuun dhufaysyada ay sameeyeen dhismayaalka beeraha ay ka tageen aawe kam tarakuu min jannaatin wa naciim wa zuruucin wa maqaamin kariim wa nacmatin kaanuu fiiha faakihiin aawe famaa aqnaa ilaahay wuxuu yidhi waayahay kuma tarin canhum kuwa gaalada maa shaygoo kaanuu ay ahaan jireen yaksibuuna inay shaqaystaan waxba kuma tarino famaa aqnaa ma deeqin oo kuma tarin canhum ayaga xaggooda min alcadaab cadaabkii la cadaabay maa shay kumuusan tarin wax shaygoo kaanuu ay ahaan jireen yaksibuuna inay shaqaystaan
wixii ay adduunyo iyo dhismo iyo dhaqaale iyo awood ay keeneen waxba kuma tarin wey. Falammaa waqtigii jaa'athum ummadahaas ay u timid rusuluhum rusushoodii markay ula timid bilbayinaati mucjizooyin cadcad. Mucjizooyin cadcad nebi kasta mucjizo ay u jeedaan in xag ilaahay lagaga soo diray. Farixuu way farxeen bimaa iyladii kii ay ku farxeen cindahum ummadaha agtooda mujrimiinta agtooda ahaado min alcilmi aqoon ah wey. yacni mucjizaadkan iyo waxdaaniyadan ilaahay nebigan rasuulkan uu la yimid cilmiga kuma aysan qancine ayaga cilmigooda oo biasbaabi almacaash watijaara yacni asbaabta adduunyada ay leeyihiin cilmiga ay leeyihiin ayay ku farxeen. maxaad haysataa adiga naga saanaan yeelnay waa macno aayadda lagu fasiray. macnaha kale farixuu way kibreen wey bimaa iyladii kii ku kibreen cindahum damiirka horkasta waxaan celinaynaa rususha agtooda wixii ahaado min alcilmi nebinimo iyo cilmi aha ayay kibir ka qaadeenba meeshay u hoggaansami lahaayeen. labada macnoba waa lagu fasiray. waxaaqa waxaa ku degay marka bihim ayaga waxaa ku degay maa cadaabkoo kaanuu ay ahaan jireen yastahzi'uuna inay ku jaasjaasaan bihi maagaas cadaabkaas. fa'tinaa bimaa taciidunaa cadaabkiyaa ku degay. falammaa waqtiga ra'ow ay arkeen ummadahaas ba'sanaa baaskanaga markay arkeen yacni ummad ma jirto hal mar gab laga siiyo wey. ummad walba cadaabka agtooda loo soo qotomin jiray waxa lagu cadaabay hadday dabaylo tahay hadday duufaano tahay hadday biyo tahay hadday dhagax tahay ayagoo u jeeda gees magaalada looga soo bilaabayaa. idaa hum minhaa yarkuduun laa tarkuduu warjicuu ilaa maa utriftu carar ay maagayaan ma carari kara. falammaa waqtigii ra'ow ay arkeen ummadahaasi ba'sanaa baaskanaga markay arkeen qaaluu waxay yidhaaheen aamannaa waan rumaynay bilaahi allah ayaan rumaynay waxdahu munfaridan keligii xaaluu yahay ilaahay. keligii xaaluu ilaahay yahay. wa kafarnaa waxaan ku kufrinay bimaa shay ayaan ku kufrinay shaygoo kunna aan ahaan jirnay mushrikiina kuwa la wadaajiye alleh bihi maaga wey. wixii alle aan la wadaaji jirnana waa ku kufrina wey. xaaladdaas ma iimaan wax taraa wey. xaalado waxaa jira sideedaba haddaad kacbada ku hor sujuudaysid aqbal aysan jirin yani bacda ru'yati alcadaab haddii la arko khalaas. xaalatulqarqaraa ka mid a marka nafta qofka lagu dhibayo waa xilligii fircoon xataa idaa adrakahu alqaraq qaala aamantu annahu laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banuu israa'iil wa ana min almuslimiin. xaa lagu yidhihe al'aana waqad casayt hadda qablu wa kunta min almufsidiin. waxaan kaloo saacad aan taraynin tawxiidka iyo toobadkeenku wax taraynin idaa dalacat ishamsu min maqribiha qoraxdii halkaas ka timaado khalaas qof walba wuxuu haysa jira waa haysto. haddaan toobad keenay ma jirto qoraxdu say u socoto qiyaamada xaggay ka soo baxaysaa. xaaladahaasi ka mid falammaa waqtigii ra'ow ay arkeen ba'sanaa baaskanaga qaaluu waxay yidhaaheen aamanaa waan rumaynay bilaahi allah ayaan rumayn waxdahu keligii munfaridan xaaluu yahay. wa kafarnaa waxaan ku gaalownay bimaa shaygoo kunna aan ahaan jirnay mushrikiina kuwa la wadaajiyey alle bihi maaga asnaamtiina waa ku gaalownay. ilahi wuxuu ihi falam yakun sha'nigu maba ahaba xaalku maba aha yanfacuhum inuu anfacayo wax ku tarayo iimaanuhum rumayntoodu lamaa waqtigii ra'ow ay arkeen ba'sanaa baaskanaga maxay ku taraysa. xaaladdaasoo kale laa yanfacu nafsan iimaanuhaa lam takun aamanat min qablu aw kasabat fii iimaanihaa khayran. xaalad naf ay iimaan wax ku taro maba ahaba. falam yakun ma ahaanin sha'nigu yanfacuhum inuu anfacayo kuwa gaalada iimaanuhum iimaankoodii rumayntooda ma anfacayo lamaa waqtigii ra'ow ay arkeen ba'sanaa baaskanaga. sunnat allah ixdaruu ayaa leeyihi ficilan usoo qadarayna ixdaruu ka digtoonaada. sunnat allaahi ilaahay sunnadiisay waddadiisii wey. waddada ilaahay marsiiya gaal kasta markay xilligaas la gaaro hadda iska jiraa layidhi kuwan gaalada quraysha wey. sunnat allaahi ilaahay waddadiisa allatii waddadaasoo qad xaqiiqee khalad tagtay fii cibaadihi ilaahay addoommankiisa kor tagtay wey. addoommankii hore ummad walba xilligii markii cadaabka la gaaray ayay calaacalay toobadkeen keeneen taa ka digtoonaada. wa khasira waxaa khasaaray oo hoogay hunaalika halkaas cadaabka markii cadaabka lasoo qotomiyey alkaafiruuna kuwa gaalada markii la kala baxo qiyaamada ama adduunkaba cadaabka la keenay yacni waxaa hoogaya khasaaro ku dhacday
gaalada wey xagga muuminiinta ay liibaan iyo yacni u baxayaan iyo maraynrayn wey suuratu fussilat wey haadihi tani suuratu fussilat waa suuradda la yidhaahdo suuratu fussilat suuradan suuratu fussilat xagga tartiibka qur'aanka waa suuradda 41 wey suuradda 41 ay xagga tartiibka musxafka ka noqonaysaa wey suuratu fussilat waxay ka kooban tahay 54 aayadood ay suuraddu ka kooban tahay 54 aayadood ay ka kooban tahay waxaa kaloo suuradda ay ka kooban tahay xagga kelimaadka 796 kelimo wey 796 kelimo ayay ka kooban tahay suuratu fussilat waxay xagga xuruufta ka kooban tahay 3282 xaraf wey 3282 xaraf ay suuraddu ka kooban tahay suuradan suuratu fussilat waa min tacbiiri الكل باسم البعض mintaaska mursalka ah kitaabun fussilat loo soo qaatay suuratu sajdana culimada qaar way ku magacaabaan oo aayatu sajda ayaa ku jirta wey suuratu fussilat waxay ka hadlaysaa alqadaa waa makiya xagga nuzuulka waa suuradaha ku soo degay magaalada maka almukarama intii uu joogay 13 sano oo nabigeennu joogay calayhi salaatu wassalaam waxay ka hadlaysaa al-aayaat al-kowniya aayadaha ilaahay lagu garto oo koonkan ayay ka hadlaysaa waxaa kaloo suuradda ay ka hadlaysaa fadlu lqur'aan wa madxuhu qur'aanka ammaantiisa iyo fadligiisa ayay ka hadlaysaa waxaa kaloo suuradda ay ka hadlaysaa yacni sifaatu ahli ljannati wannaar sida ayba suuradaha makiga yihiin sifaadka dadka ahlu jannada iyo dadka ahlu naarkana way ka hadli doontaa waxaa kaloo suuradda ay ka hadli doontaa yacni ahwaalu yowmi alqiyaama maalinka qiyaamada cadaabka iyo dhibaatooyin gacmihii qofka ka hadlaya inta afkii la xiro lugihii ay hadlayaan ay suuraddu ka hadli doontaa waxaa kaloo suuraddu ay ka hadli doontaa bacdun min qisas alambiyaa wa umamihim qaybo yaryar oo si koobana sida nebiyullaahi huud iyo qoomkiisii ree caad waxaa kaloo ka hadli doontaa ree thamuud iyo meelihii ay ku dambeeyeen ay suuraddu ay ka hadli doontaa waxaa kaloo suuraddu ay ka hadli doontaa yacni khaatimatu almu'miniin alsaalixiin dadka mu'miniinta ee saalixiinta khaatimada wanaagsan oo ay yacni waxa weeye ilaahay ina aladiina qaaluu rabbuna allahu thumma istaqaamuu waxaa kaloo suuraddu ka hadli doontaa fadlu sabri sabarka iyo fadligiisa ay suuraddu ka hadli doontaa xeelaad badan ayaa noogu imaan doona bismillaah ilaahay magaciisa ayaan ku bilaabaa allahaasoo arraxmaani naxariista guud naxariista adduunkan muslim iyo gaalba ay waraabayaan allahaasoo arraxiimi naxariista gaarka naxariista aakhiro wey oo muuminiinta duuna alkufaar gaaladu aysan ku jirin wey waa sida ilaahay kitaabkiisa suurad walba bisinka lagu bilaabo xaamiim allahu aclamu bimuraadihi bidalik ujeedka xarfahaas ilaahun baa garanaya tanziilun soo dejin tanziilkoo min arraxmaani allaha naxariista badan xaggiisa ka ahaaday allahaasoo arraxiimi haddana tanziilkoo min arraxmaani allaha naxariista guud naxariista ka ahaad tanziilkoo min arraxiimi ee haddana allaha naxariista gaarka naxariista xaggiisa ka ahaaday kitaabun waa kitaab welilah xaggaan uga khabarnay icraabaad badana bannaan kitaabkoo fussilad la kala saarsaaray aayaatu waxaa kaloo ku bannaan tanziilka inaad ku tacallujiso min arraxmaanida ku tacallujiso tanziil tanziilun soo dejin min arraxmaani allaha naxariista guud naxariista laga soo dejiyey arraxiimi allahaasoo arraxiimi naxariista gaarka naxariista xaggiisa laga soo dejiyey kitaabun waa kitaab wey kitaabka oo fussilad la kala saarsaaray aayaatuhu aayadihiisaa la kala saarsaaray maxaa loo kala saarsaaray qur-aanka hal usluub iyo hal nidaam kuma socdo aayaatul kitaab qaar waa mawaaciid waanooyin qaarna waxaa waaye mawaaciid hanjabaadyo weylun lilmushrikiin waa hanjabaadyo qaarna waxaa waaye amthaal tusaalooyin soomaadan arkin badihii cirkii samadii tusaalooyin qaarna waxaa weeye axkaamaad tashriicaad waxaa lagu qaar waxaa weeye qisooyin oo kala saarsaaray kitaabun waaye tanziilkaas kitaabka fussilad la kala saarsaaray aayaad kitaabkaas aayadihiisa wey
قرآنا حال ويهي من تعبير المصدر وإرادة اسم المفعول مثل أقرنا أيوه قرآنا أي مقروءا حال ويهي كتابك أي مقروءا مثل أقرنا أيوه قرآن كاسو عربيا لغة عربية لو نسبيه لغة العربية قيمها إلى قرآن كإلهي كلام كإلهي أياكو شرحا marka waxay taasi daliil noogu noqonaysaa luqadda inaan ahmiyad siino oo qofka luqadda iyo yani fahamkeedii iyo kutubteedii iyo funuunteedii mahma qofku ku takhasuso yani faham iyo aqoon dheeraada ayuu kitaabka ilaahay u leeyahay qur'aanan xaanu ya qur'aanku carabiyan luqadda carabiga loo nisbeeyey qur'aankaasoo liqawmin qoom u sugnaaday qoomkaasoo yaclamuuna wax kale og oo wax og weyn يعني قومك قرآن كان مركه ugu horreeyay lagu bilaabo Quraysh ah يعني يعلمون علم اللغة العربية ويقاني قرآن كان loo sharxay muxuu ka hadlayaa يعني maxaa loola jeedaa ma jirto يعني cinaad iyo takabur bay u diideen maahane ummad walba quraankaas ummadii lagu soo dejiyay way garanayaan bashiiran xaaru yahay mid bishaaraynaya kitaabkaasi bashiiran xaalu yahay mid bishaaraynaya liman aamana bihi aljanna tan ugu bishaaraynaya ونذيرا حالو يا كتاب كاسي مدقايا لمن كذبه بالنار نار وقدقايا وين فأعرض ويكسي جيستين أكثرهم انتو ذا بدن قالدا عنه كتابك إلهي وكسي جيستين وفهم قالدو لا يسمعون ما مغليان بوين سماع قبولنا لقوضا فأعرض ويسي جيستين أكثرهم دادك انتو ذا بدن ويسي جيستين وين وفهم أيقول لا يسمعون ما مغليان سماع قبول وتفهم دقوا ليين يكون مغلان لكن يقها سلاب ومصيد الإعلان وقالوا حير أهدين قالوا ذان وبيان وتوضيح لعدم سماعهم القرآن سي قرآنكم مغلي وين أيقا بشيء قالوا حير أهين قلوبنا أنك قلوب تاني لابهنو في أكنة دبوليال لحديهات قلبي أنك دبولنا يدين وحن مبقلاين مما كي أي كدبولانتها قلوبتينو تدعونا نبي محمد وأدنوغو يريسيد إليه ما أدنوغو يريسيد خلاص قنفلها كجبا فرهنا وردمي حبق لي مايا وجاس يكبروا وفي آذاننا دقها نقا دحدو دوحاء هذا وقر عليس ودك تقناه دان قم دقا عضلاته محمد غلايا حاتري هذا أوليه وإذب درؤي هذا الماشي وجاز كقاري ومن بيننا أنك دحد النذا إيو بينك هذه دحد هذا النبي محمد حجاب تيضع هذه دهن حجاب معنوي ما بيسو قد بكرنبا ذيك أنا ما ركتي وحاات شيغيسو نسو قاري مايان أنكونا وحنكو قاري مايان فعمل عمل فل في دينك إننا أنكونا عاملون كو عمل فلا في ديننا نوكالوت مدى إلهي لا يسمعون صوما حمق لا قفلا سبحانه وتعالى قل حاتر يا نبي الله إنما إن كلمة أنا أنيقا وشر بني آدم أنا هاي بشر كاسو مثلكم أدينك إن لميدوي ور أنيقا مركاد اللي ديهين سيد نبي لقا قد قادقا أنيقا بشر إن لميدها أنا هاي يوحى ولا سوح يودا إلي أنيقا حقيقا ولي سوح يودا إنتا سنكوك على تكسن بشر إلهي بقري ورسالة ديبي ووحيو ديبي وتوحيد لو وحيودي أيان أحيو قلوا حاتر هذا إنما إن كلمة أنا أنيق بشر بني آدم أنا بشركم مثلكم أنيكم وكلا يوحى ولو وحيودا إلي أنيق محليس وحيودا أنما إن كلمة هنا إلهكم إلهين إله وإله إله واحد إكلئه الإله فاستقيموا أتصناد إليه الله تتصناد بالتوحيد والعبادة واستغفروه الله سنكدم بداف ضلبة ساسا يليسو وحيودي وويل هلاك للمشركين كوا قالدا اي وسغناده ووادي في جهنم كيا ويل كوان وادي النار للمشركين الذين مشركون لا يؤتون ان ديبن ان غدنين الزكاة ان ديبن زكاة ما ديبان وهم ايغونا بالآخرة آخرة هم ايغو كافرون وتوكيد كو قالوبي هدنا الذين مشركين لا يؤتون ان ديبن الزكاة زكاة ما ديبان وهم يقولون بالآخرة آخرهم يقولون كافرون كقالوا بالآخرة آخرنا كقالوا أيضا نحيت المامايان يعني مسألة علماء الأصوليين تو أي
qabaan oo ah alkufaaru mukhaadabuuna bifuruuci shariica gaalada waxaa lagula hadlaa furuucu shariica maxaa yeelay yacni waxa laga dalbanaa waxaa laleeyahay tukada laakiin tukada sidiisa kuma tukan kare waxay ka dhigan tahay aslim thumma salli islaam oo tuko aslim thumma zaki islaam oo zakada dhiib aslim thumma sum islaam oo soon aslim thumma xaj xuja xaji saasaa laleeyahay maxaa yeelay ilaahay wuxuu tilmaamay inaysan zaka dhiibin waa laga rabaa laakiin waa diidan yihin salaadana qur'aankaa sheego yacni suuraddu maxay ahayd ay ku jirtay qaaluu lam naku min almusalliin suuratul mudathir waxaa la yidhaha maa salakakum maxaa idin geliyey fii saqar naarta saqar maxaa idin geliyey maxay ku jawaabayaan muwaxidiin ma ahayn ma dhahayaan oo ahlu tawxiid maanan ahayn ma dhahayaan waxay leeyihiin qaaluu lam naku min maanan tukan jirin marka tukada waa lagu haystaa inay tukadaan waa loo cadaabi ma aha gaalka in la leeyahay waa iska dhinta salaada wala dul saarayno kaliya ilaahay wuxuu ugu nicmeeyey in yantahuu yughfar lahum maa qad salafa haddii gaalkii 90 sano soo jiro uu soo islaamo ilaa maalimkaad qaan gaarta salaadii soo tukala dhima waa lagu haysta laakiin hadduu la dhinto asagii taariku salaadka muslimka isku cadaabo waa lagu cadaabi wuu sii daran yahay ilaahay wuxuu yidhi marka in alladina kuwii aamanuu rumeeyey aayaddan waxay ku soo degtaa la yidhi dad asxaabta ka mid a oo cibaadada iyo daacada markii la tirtirsiiyo la yidhaha intaasaa laga hela jihaada loo baxo ayagu iska jiran waa yeelle ah cuuryaame iska ah ilahay wuxuu yidhi in alladina kuwii aamanuu rumeeyey alla iyo rasuul wa camiluu camal falay alsaalixaati acmaashooda wanaagsan lahum ayaga waxay leeyihiin oo u sugnaaday ajrun ajirkaasoo hayru mamnuunin ay maqduucin mid laga kala gooyo kayrkiis ah lagama kala gooyna haddaad caafimaad qabi jirto cibaadada ku dadaali jirtay waad dhul dhacday waa kuu socda waayeelaad noqotay ajirkaaga waa kuu socda lugihii aad ka go'da jiisaad noqotay waa kuu socdaa markaa kala go'ayo ilaah fadli ilaahi subxaanahu wa tacaala wallahu subxaanahu wa tacaala aclam sala allah